dagaalkan ayaa barqanimadii maanta waxa uu ka dhacay xaafadda Xoosh oo ka tirsan degmada Dharkeelle ee gobolka Banaadir waxaana la sheegay inuu u dhaxeeyay ciidamo ka wada tirsan kuwa militariga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. ciidamadan ayaa waxaa dadka degan xaafadaas ay xaqiijiyeen in dagaalka uu ka dambeeyay kadib markii xarun ay ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin xaafadda Xoosh ee degmada Dharkeelle ee weerar culus ku soo qaadeen ciidamo kale oo watay gaari nooca Soomaalida u taqaan Cabdibilaah waxaana halkaas ka dhacay dagaal xoogan oo ku dhawaad 30 daqiiqo ka socday xaafadda Xoosh ee degmada Dharkeelle ee gobolka Banaadir. inta la xaqiijiyay dagaalkaas ayaa waxaa ku geeriyooday hal askari halka tiro kale ay ku dhaawacmeen waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in ciidamada dagaalamay ay kala wateen sargaal lagu magacaabo Liibaan Madaxweyne oo ka tirsan guutada saddexaad ee militariga Soomaaliya iyo mid kale oo magaciisa lagu soo koobay CD. ilaa ay hadda lama oga wax sababay dagaalkooda waxaana dadka ku nool xaafadda Xoosh degmada Dharkeelle ee gobolka Banaadir ay sheegeen inay cabsi xoogan soo wajahday isla markaana qayb ka mid ah ciidamadii dagaalamay ay weli xaafadda ku soo yihiin. si kastaba maamulka degmada Dharkeelle ee gobolka Banaadir iyo saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya weli wax faahfaahin kama bixin kamana hadlin dagaalka ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ku dhex maray maanta barqadii xaafadda Xoosh oo ka tirsan degmada Dharkeelle ee gobolka Banaadir waxaana tani ay qayb ka tahay inta badan dagaalada dhex mara ciidamada ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya kaas oo ka dhaca magaalada caasimadda ah Muqdisho inta badan khasaaraha ay ka soo gaaraan dadka shacabka ah ee dushooda lagu dagaalamay.